warkii faahfaahsan dood cilmiyeed looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaalidu ay ka qayb qaadan karaan ama ay ka qaadan karaan amniga iyo waliba horumarka dalka isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyaha Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan inoo soo dirtay dhalinyarada ku jirta baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo qaban qaabiyay dood cilmiyeed ku saabsan kaalinta dhalinyarada ay ku leeyihiin bulshada waxaana kulankaasi oo lagu qabtay habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari mudanayaal ka tirsan baarlamaanka xubno golo wasiiro ah iyo boqolaal dhalinyaro ah waxaana dooda si weyn xoog loogu saaray doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan amniga Soomaaliya siyaasadda iyo dib u dhiska wadanka xildhibaan Cabdullaahi Xasan Roble iyo taliyaha ciidamada badda Admiral Faarax Qare oo ka qayb galay dood cilmiyeedka ayaa waxa ay ka hadleen dhalinyarada iyo sida ay qayb uga qaadan karaan amniga iyo horumarka wadanka maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed lagu eedeeyo inay lug ku leeyihiin colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira wadanka Soomaaliya waa inaad ogaataan dalkan inaad leedihiin muddo dheerna ay idin sugayso ninkiina dhowr iyo 20 jirka maanta waxa sugayo 50 sanadood oo soo socda oo la rabo dalkan inuu u adeego ugu yaraan waa laba waxa la idinka rabaa inaad abuurataan vision wax la yiraahdo aragti dambe oo aad tiraahdaan dalkan aad joogi doonto maxaad ka rabtaan muxuu noqon doonaa waxaa la idinka rabaa inuu visionkiinu leeyahay strategy aad ku dhaqantaan oo la yiraahdo saasa goolka lagu gaari karaa waxaan rabaa inaydan ayan idin niyad jabinin oo ayan wadadiina hor istaagin baqdinta faraha badan iyo dadka leh waxba inoo suurtoobi maayaan nabadgelyadu waxay ka bilaabataa nabadgelyada caloosh ayay ka bilaabataa food security waa gaaladu tira maanta in misaa dhalinyarada shaqaysa aan isweydiinay kulligood waa baahan yihiin nin baahanna laga sugi maayo wax badan laga sugayo waa inaan u qonno inaan baahi tiro dhalinyarada shaqo heldo waa inaan u qonno hay'adaha dalka jooga hadda xataa biyantooni keensadeen maalina leedikama maqal maxay u keensadeen waxay keensadeen calooshood u shaqaysi hubaysan ayaa maanta hay'ad kasta ilaalisa idinku miyaad ilaali kari weysin ma dawladdiina u sheegtaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo soo xiray kulanka dood cilmiyeedka ah oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ku jirta baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin in ay qaban qaabiyaan shirweyne ku saabsan dhalinyarada iyo sidii ay uga tashan lahaayeen aayaha wadanka Soomaaliya hadii naftaan ugu jirto inaan aragno aan rabno waxay tahay walaalayaal isu taga aan arko idinka oo sameeyay shirweyne dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhammaan Soomaaliya ka wada timid oo halka lagu qabto arrimihiina ka doodayna timaadaan badbaadada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa idinka oo shirweynaha isugu yimid go'aanada gaaraya qasbaya dawladda iyo baarlamaanka dhahaya sidaas ku shaqeynaysaan yaa xukuuma yaa khaadim adeegaygiyo warqadda tani taa ku shaqee inaad tiraahdaan la idinka rabaa baarlamaanka diyaar buu yahay in idinka qaado ma haysaan afkaartiin aad ku furan lahaydeen ma haysataan qorshihii aad dalkiina kula wareegi lahaydeen waxaan idinka baryayn waxa war dalkii inaga hooya u tashada kulankan oo ahaa kulan dood cilmiyeed ah oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah kulankii ugu horeeyay oo ay soo qaban qaabiyeen xildhibaanada dhalinyarada ah ee ku jirta baarlamaanka waxaana lagu dhiirigeliyay boqolaalkii dhalinyaro ee ka soo qayb galay kulankan inay gacan siiyaan dawladda Soomaaliya si amniga wadanka dib loogu soo celiyo Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ama uu leeyahay talaalka cudurka dabaysha iyo dhibaatooyinka uu soo carruurta wariyaha Axmed Kaabo ayaa warkan faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka caafimaadka mudane Cabdifataax Maxamuud Xasan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa ayaa shaaca ka qaaday u diyaar garowga talaalka ka hortagga cudurka dabaysha ama boolyada oo laga hirgelinayo deegaanka Soomaalida Itoobiya talaalkan cudurka dabaysha wareegiisii labaad aan rabno inuu bilaabo Jimcaha haddii aan warbixin kooban idinka siiyo waxa weeyaan guud ahaan cudurka dabaysha waa cudur keena
naafo joogta ah ku keena carruurta yaryar naafadaas oo maxaan ku rahay ilmahaas uu noqonayo inta cimrigiisa ka dhiman naafo haddii uu cudurkaasi ku dhaco dawana aan lahayn mar haddii uu ku dhaco ka hortag mooyaane sida kaliya laga hortagi karo waa ilmaha oo laga tallaalo cudurka inta uuna ku dhicin carruurka laga tallaalayana waxay noqon doontaa carruurta da'doodu ka yartahay 5 sano haddaba si ka gedisan sanadadii hore sanadkan waa markii labaad aan qabanno tallaalka noocana iyadoo oo maxaan ku rahay lala kaashanayo wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo hay'adaha bahwadaagta WHO iyo UNICEF waa kan mar kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka caafimaadka oo ka warbixinaya sababta keentay in la qabto wareegan labaad iyo wareegyo kale oo soo socda taas sababta keentay waxa weeyaan iyadoo hadda ka hor si aan loo arki jirin cudurkan dabayshu uu geeska Afrika gaar ahaan dalalka aan dariska nahay loogu arkay cudurkan si cudur dilaac oo kala ama outbreak waxa loo yaqaano carruurta ku nool uu cudurku sidaas oo kale u soo gaadho in la qabto tallaal emergency ah oo laga hortagayo cudurka dabaysha kaasoo 3 wareeg ah taasina waxay keenaysaa in 3 jeer oo isku xigta marka ilmaha la tallaalo awoodiisa heerka difaaciisa uu jirkiisu isku difaaci karo ama cudurka iskaga difaaci karo ay kor u kacayso marka waxa laga maarmaanaa in ay hooyo kasta iyo aabba kasta iyo qof kasta waalidii oo arintan maxaan ku rahay culays ka saaro isla markaana si carruurteena aan uga badbaadin lahayn cabsidan laga qabo inuu cudurkaasi maxaan ku rahay gaadho deegaanka inay maxaan ku rahay u guntadanayaan maxaan ku rahay gacan siiyaan xirfadlayaasha caafimaadka tallaalka wadan inay gacan siiyaan cidda aan maxaan ku rahay fariinteena gaadhin inay gaarsiiyaan guud ahaan tallaalkan ka hortagga cudurka dabaysha ama booliyada ayaa waxa ku baxaysa miisaaniyad gaaraysa 7.5 milyan oo bir waxaana ka howlgalaya 5893 kuwaas oo isugu jira xirfadlayaal iyo mutadawiciin Axmed Kaabe telefishinka caalamiga Universal Jigjiga dhaqaatiir ajnabi oo gaaray deegaanada Puntland ayaa halka ka fuliya howlo caafimaad iyo waliba qalliin isugu jira sida uu ku soo waramay wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane oo garaway naga soo waramay dhaqaatiirtan ajnabiga oo ka timid qaar ka tirsan dalalka Carbeed dhawaana soo gaadhay deegaanada Puntland waxay bilaabeen inay adeegyo dhanka caafimaadka ah ay u fidiyaan qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka Puntland waxyaabaha ilaa iyo iminka ay adeegyadaasi dhanka caafimaadka ka qabteen dhaqaatiirtan waxa la sheegay inay tahay baaris caafimaad iyo qalliino kala duwan oo dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ay kaga maarmeen in ay dalka dibadiisa adeegyadaasi u doontaan xarunta qaran medical center ee magaalada Garowe oo hawshaasi ay sida rasmi kaga socoto isla markaana dhaqaatiirta ajaanibta ay wadaan waxa maalintii gaara 60 ilaa 90 bukaan oo isaga kala yimaada guud ahaan deegaanada Puntland Dr. Anwar Yahya oo ka mid ah dhaqaatiirta ajaanibta ah gaar ahaan kuwa ka yimid dalka Yemen kuna takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha waxa uu TV-ga caalamiga ah ee Universal kaga waramay kiisaskii ugu badnaa ee uu daweeyay intuu ku sugnaa deegaanada Puntland I see a lot of cases as like osteoarthritis of the spine, osteoarthritis in the joints. Also, we see a lot of cases of headache and undiscovered case of diabetes mellitus and hypertension. And I discovered more than 4 or 5 cases of brain tumor. maamulaha xarunta qaran medical center ee magaalada Garowe Faisal Ahmed Warsame ayaa dhankiisa TV-ga caalamiga ah ee Universal si gaar ah kaga waramay baahida xilliga kan ku soo beegtay in dhaqaatiir ajaanib ah dalka la keeno ay markaan ogaanay baahida ay macnaha bulshada u qabto iyo waxyaabaha dhibaatooyinka jira oo la xalin karin ayaa waxa markaa aan la macaamilnay macallimiin u dhashay wadanka Yemen oo dhaqaatiir macnaha professor ah oo takhasusad leh specialist ah marka khadka hadda line-kaas aan bilowno specialist ah waan ku guuleysanay tijaabada koowaad aan soo binayna waayadii aan ayaan hor qabanay waxaan ku guuleysanay inaan qalno 86 qof waxaana lagu daweeyay 700 qof qalimadaas qaarkood oo loo aadi jiray Malaysia, Ethiopia iyo meelo kale oo fog ayaa halkan lagu qabtay ayadoo waliba lacag waxa jaban oo aad u raqiis lagu soo biyay qaarna oo si tabarucaad loogu soo biyay marka aad ba arinta ugu guuleysanay haddana dhakhtarka labaad oo dhakhtar neerbaha ayaan keenay si kastaba ha ahaatee arinta hawshan qaliinada iyo baaritaanada caafimaad oo ay wadaan dhaqaatiirta ajaanibta ah ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan sidaan oo kale magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug howlo caynkan oo kala ah ay ugu sameeyeen dad isaga kala yimid deegaanada Puntland
qaybo ka mid ah Somaliland gobolada dhexe iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo qaybo ka tirsan dalka Itoobiya Umar Maxamed Somane telefishinka caalamiga deeq kubadda cagta ah oo lagu dhiirigelinaya caruurta yaryar ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa loo qaybiyay qaar ka mid ah caruurta ku nool degmooyinka magaalada Muqdisho Cabdicasiis Ibraahim Okay ayaa warkan ka soo daray magaalada Muqdisho isdhexgalka dhalinta oo laga gacan siiyay qaybaha sportiska waxa ay qayb ka tahay kobcinta moraalka kurada yaryar ee mustaqbalka berita ee dalka xilliyada casar gaabka iyo wadooyinka iyo aqalada hortooda ee magaalada Muqdisho waxa kubadda cagta kooxa wadareed ugu wada dheela caruurta yaryar ee sportiska ay Soomaaliyeed kuwaasi oo nashaad firfircooni iyo lagu baxsiba ka hela kubadda cagta ay ku baratamaan waxaana caruurtaasi ay yihiin kuwa si aad ah isku fahmay isla mar ahaantaana kooxa u wada ciyaara kuna baratama kubadda cagta haddaba maamulka gobolka Banaadir ee dawladda Soomaaliya ayaa galinkii dambe ee shalay deeq kubadda cagta ah oo fara badan oo dhawaan oo ka helay dalka dibadiisa qaybna ka ah barnaamijka danta guud waxa uu gaarsiiyay caruurta kubadda cagta ku ciyaarta hareeraha wadooyinka xaafadaha degmooyinka Cabdicasiis Xamar Weyne Shangaani iyo Boondheere waxaana mas'uuliyiinta sarsare ee maamulka gobolka Banaadir oo horkacayay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa xog dheer kaga waramay qaabka caruurtan ay u gaarsiinayaan deeqda kubadda cagta ah ay dhawaan soo heleen maamulka gobolka Banaadir maanta waxaan furaynaa mashruuc la dhaho canug kasta ama meel kasta goob kasta magaaladan Xamar lagu ciyaarayo in ay helaan kubad si gaar ah loo design gareeyay oo dariiq raf ah oo qodxale iyo roob iyo qoyaan iyo abaar iyo sallax lagu dheeli karo oo hadday banjartana ayadu isbuufinaysa marka waxaan rabnaa maanta taasaan bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraaho waxa qayb ka mid ah weeye danguud mashruuca danguud qayb ka mid ah weeye Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho warka caalamka daawadana la socodsiinayna Jamiil Xasan Garuuna xilliga inta ay iga yahay waxaan idin ku dawayaa qaybaha kale ee TV-ga